kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka faaqidada ciyaaraha barnaamijka caawa waxaan ku falanqeyn doonaa finalka Europa League oo dhex mari doona labada kooxood kala ah Villarreal oo koox Spanish iyo Manchester United oo Ingiriis ah. Manchester United waxay ka soo adkaatay kooxda Roma, xagga Villarreal ay ka soo adkaatay kooxda Arsenal. dabcan haddaan ku horeyno Manchester United ayaa loo badinayaa oo loo xaqlinayaa inay qaado caawa koobkaasi. dabcan Europa League waa koobka ahmiyadda labaad qaaradda Yurub ka xiga marka laga yimaado Champions League, waxaana isugu yimaada oo kala qaada dabcan kooxaha saqafka labaad wadanka ka tirsan guud ahaan qaaradda Yurub. dabcan Manchester United waxay ku jirtay Champions League laakiin kaalin saddexaad bay groupkeedii ku soo baxday sida awgeed ay uga qayb galaysaa sanadkan Europa League. Manchester United sanadka waxa ugu cadcad ninka Bruno Fernandes oo 18 gool ka dhaliyay horyaalka Ingiriiska. Marcus Rashford baa jira, dhexda waxay haystaan McTominay iyo Fred. xagga difaacu ka maqnaan doona xidigeedii aadka ugu cadcad Harry Maguire ahna kabtanka kooxda Manchester United. Villarreal waxay haysataa dabcan Villarreal maaha koox taariikh weyn, gabigeeda waa 89kii ay timid saraa'ida horyaalka Isbaanishka, may qaadin wax koobaha taariikhdeeda. dabcan ciyaartan waa ciyaar aad u muhiim ah. kaliya waxa lagu xasuustaa 2006 oo ay aad koox maamulkii hore kooxdaasi Manuel Pellegrini sanadkii 2006 markay timid semifinalka Champions League. waxaana dabcan kooxdan soo shaac saaray ninkii la oran jiray Juan Román Riquelme iyo Marcos Senna oo dhexda uga ciyaari jiray Roberto Perez oo baasha taagnaa, Capdevia oo waxaan xusanaa uga ciyaari jiray Baltriga difaaca. maaha koox weyn laakiin 2006 bay soo shaac baxday. kooxda Arsenal oo finalka sanadka tagtay 2006 ayaa reebtay, waxay kuma qaadin wax koob ah. sanadkii 2008 bay kusoo gashay kaalinta labaad ee horyaalka Isbaanishka. dabcan waxa maamulaya sanadkan Emre oo ahaan jiray tobabarihii hore kooxda Arsenal. dabcan Emre wuxuu koob hore oo Europa League la soo qaaday Sevilla oo 3 jeer oo hore Europa League la soo qaaday. waxa loo yaqaanaa caraabka ama ninka boqorka waa Europa League maadaama oo 3 jeer hore uu la soo qaaday kooxda Sevilla. Villarreal sanadkan taagani dabcan waxa dhexda uga ciyaara Parejo oo ahaan jiray kabtanka hore kooxda Valencia, Ethan Caboy iyo Coquelin oo soo qudhiso Arsenal u ciyaari jiray. difaaca waxa taagan Pau Torres oo lagu tiriyo difaaciyaanada Isbaanishka ugu fiican. waxa kale oo haystaan Gerard Moreno oo weerarka uga ciyaara, ninka Nigerian oo bixilo aad u wanaagsan oo la yiraahdo Samuel Chukwueze ayaa iyagana uga ciyaara baasha weerarka ah. marka ma horta koox la dhaysan karo kaalinta shanaad bay gashay horyaalka Isbaanishka. dabcan ceebteedu waxa weeye markii aan daawaday kulmadii ay sanadka dheelaysay waa koox aan si fudud maaha koox xagga tactically marka la eego maaha sida kooxaha kale Isbaanishka yani kubad aad u sariica oo orod badan ciyaarta. waa koox intaas ceebtaas ay leedahay laakiin xagga positionka iyo dabcan way daalin karaysaa yani markay baasas isku dhibaan Ethan Caboy oo Faransiis iyo Daniel Parejo Spanish markay baasas isku dhibaan wasadka waa Manchester United kuma fiicna xagga positionka kubadda ma haysato. Manchester United waa laba saddex baas bay ku hortay kartaa goolka hortiisa. marka labada kooxood waxay moodaa inay ku ciyaaraan laba usluub ama laba qaab ciyaareed oo iska soo horjeeda. marka dabcan waxa difaaca uga ciyaara baasha waxaan oran karnaa Villarreal waxay haysataa positive ah oo ma garanaysaa Gaspar oo tuuga taagan iyo Padrella oo inkastoo ninka aan aadka u taageero ee la yiraahdo magaciisa Estopinan waa laacib yar oo Ecuadoria oo aad u wanaagsan runtii. dabcan wuxuu ku wanaagsan yahay kubaddu jiidi karaya, waana muraawiq oo kubadda imika marka la dhaga Wan-Bissaka difaacan aad buu wanaagsan yahay laakiin mararka qaarkood buu aad moodaa inuu ka yara dhaco. marka Estopinankaasna wuxuu ku wanaagsan yahay uu ka daba bixi karaya bixitaanka difaacida aad buu wanaagsan yahay. waana nin gasta yaqaano oo kubaddana jiidi karaya. marka Estopinankaas hadduu baasha bidixe Villarreal ka ciyaaro Wan-Bissaka waxa filaya inuu daalin karayo caawa. haddii Manchester United ku noqono Manchester United dabcan awoodeedu waxay ku fadhidaa xagga weerarka ninka la yiraahdo Bruno Fernandes. waxa kale isaguna aad u wanaagsan khabiirka rugcadaaga reer Uruguay Edinson Cavani oo runtii kamid ah weeraryahanada adduunka ugu fiican inkastoo uu imika 34 jir meelaha yahay oo weynaaday dhaawacyo ay la dilay laakiin marka uu caawa waxa la filayaa inuu ciyaar aad u wanaagsan soo bandhigo. marka Marcus Rashford iyo Cavani bay iska taagi doonaan. waxaan kale ku ciyaari doontaa waxa dabada istaagi doona Bruno Fernandes
saddexdii dhexda ahay Paul Pogba iyo Martin McTominay iyo Fred ayaa ciyaari doona iyaguna labadii baalood ee kala ah Luke Shaw iyo Wan-Bissaka baalasha difaaca ka ciyaari doona center back maadaama uu Maguire ka maqan yahay waxa ciyaari doona sida la filayo Axel Tuanzebe iyo Lindelof طبعا xitaa Dekhia isagu ka ciyaari doona oo soo gali doona goolka sanadkan koox ciyaaraha qaarkood buu benchaha oo Henderson baa ciyaari jiray laakiin waxa la filayaa caawa finalka inuu ciyaaro Dekhia oo aad moodo inuu soo ceshanayo qaar ciyaareedkiisa aad ku fiicnaa looga bartay dhowrkii sano ee hore ee u dambeeyay marka haddii aan idhaahno yaa qaadi doono waxaan anoo xaglinaya dabcan Manchester United oo ka laacibin fiican maxay ahayd Villarreal waxa wata Manchester United laacibkeedii hore ee Ole Gunnar Solskjaer طبعا Ole Gunnar Solskjaer balowgii aad u muuqancin dadka laakiin waxaad moodaa sanadkan in uu garanaysaa kaalinta labaad bay soo galeen waa kooxdii labaad ee ku xigtay Manchester City oo liiga qaaday Champions League gurubyada ka hadhaan laakiin haddii ay qaadaan Europa League sanadkan waxa la oran karaa waa muusim aad u wanaagsan oo naajixa Europa League iyo kaalinta labaad muusim naajix sanadka dambe waxa laga filayaa in liiga ku tartamo marka waxaan u xaglinaya Manchester United laakiin Villarreal waa koox daalin karaysa runtii qodobada waliba aan ka hadlay istoobanaan qaarada taagan iyo Daniel Barrejo iyo Etienne Carboy way wanaagsan runtii Samuel Chukwueze dhaawac la soo gaaray ciyaarta Arsenal semi-finalkii laakiin hadduu ciyaaro aad buu wanaagsanaan doonaa طبعا marka ciyaarta waxaan oran karaa 60-40 boqolkiiba 60 waxa badan Manchester United 40na maadaama Villarreal ay tahay waqtiisa ay haysatana Emre oo aad u wanaagsan Europa League waxa filayaa inay sameyn karto surprise oo ay qaadi karayso koobka tan iyo barnaamijkan intaan ku kulmi doono aad baan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.